ku-xigeenka jamhuuriyadda somalilan golaha wasiirada ugu horeeya wasiirka waxbarashada wasiirka teknolojiyadda wasiirka difaaca wasiirka caafimaadka agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka guddoomiyaha xisbiga ucud duqa degmada gabiley xildhibaanada isuduwayaasha dhalinyarada salaadiinta aqoon-yahanka kale waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. salaan kadib halkan waxa weeyaan in dardaaran iyo waano la siiyo ardayda qalin jebinaysa ee jaamacadda ka qalin jebisay maanta. ardayda hal baan leeyahay dadaalka iyo sharafta qiimaha leh halkan ku joogtaan waxaan filayaa waalidkiin ayaa kowka haddaydaan haysan waalid idin soo barbaariya oo halkaa idin soo gaadhsiiya halkaa ba idin soo gaadhay marka hore ilaahay umahadnaqa warlabaadkana waalidkiin umahadnaqa. midna waxaan leeyahay wasiirada halkan fadhiya wasiirada waxaan leeyahay de marka aad timaadaan intaasoo wasiir baa isku soo raacdeen baa timaadeen dhalinyaraha qalin jebinaysa waxaan odhan lahaa nin waliba intii usoo beegantaa ama inta sii wadanaysa ha noqoto ama kuwa cusubaa qoraya ha noqotee bal ninba taagtii nina tabarti waxa weeyaan maynu iman halkan mandar iyo dee inaynu xafladda xagga hore soo fadhiisanno oo ay dabeetanaa dee sacabka laydiin garaaco waxa weeyaan idinka wasiirad wasiiradii hagayey ee dowladda dhexe idinkaa laydinku iganayaa waxaan malaynayaa dhalinyaro iyo waayeelba waa isugu jirtaan qiimaha iyo sharafta aad leedihiin inaad kor u qaadaan si dhalinyaradiinuna idinkaa idinku hirato iyagaa berri noqon doona iyaguna dee wasiiradii idinku xigay berrina iyaguna ubadkiina aad dhashaan ayaa laga doonayaa inay sidaa u taabileeyaan marka waxaan idin odhan lahaa inaydaan halkan ka bixin maanta idinkaan wax ku ballan qaadin aydaan noqon intaa kadib waxaan leeyahay dhammaan dadweynaha sharafta le halkan joogaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.
Thank you.